بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها دولة جبلان أحمد محمد إسلام دمان مدحنا كره هير فدرال يهير دولة حمناها كأه دولة فدرال كأه xubnaha labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose ee dowladda federaalka ah xubnaha baarlamaanada Jubbaland iyo Puntland halka jooga xubnaha ka jooga golaha wasiirada ee Puntland dhammaan madaxda kala duwan ee halka joogta qaybahooda kala duwan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa runtii farxad weyn ah anoo ku hadlaya magacayga magaca bulshooyinka Puntland inaan halka u soo gudbiyo hambalyo madaxweynaha la doortay ee Jubbaland Axmed Madoobe waxaan ugu hambalyeeyaa madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ee Jubbaland madaxda kale iyo shacabka reer Jubbaland sida habsamida leh oo deganaanta ku jirto ay ku dhacday doorashadii iyo guusha madaxweynahooda hore ee marlabaad ugu garteen inuu geediga sii wado waxa ugu weyn aan u soo safarnay waxay inaan hambalyeeno inaguna baarkeeno afartan sano soo socota meesha ay gaarteen meel ka sii wanaagsan inay gaartaan sida waajibka ku ah dawlad kasta oo xubinka dawladaha federaalka inay la wadaagto walaalaheeda kaleeto marxaladaha ay kala ku jirto oo ay tahay marka ay sidaan oo kale munaasabadaha waaweyn u dhiganayso inay kala soo qayb gasho waxaan ajiibnay martiqaadkii ay dawladda Jubbaland noo soo fidisay maxaa yeelay waa waajibna lagu lahaa markaan annagu u yeeranaga way noo yimaadeen runtii munaasabadan waa munaasabad caleemasaar waa munaasabad hambalyo xukuumadda Puntland iyo shacabkeedaba waxay qirayeen maalmihii ay socotay doorashadan laga soo bilaabo doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka iyo tii madaxweynahaba si rasmi ah ayay ugu soo dirtay hambalyo waxay ku qanacsadeen iyadoo si dhow la socotay habkii wax u socdeen processkii la maro halka laga sheekeeyay si dhow aan la soconay waxaan qiraynaa inay ahayd doorasho hufan oo xalaal ah oo runtii la oran karo way habboon tahay in laga soo qayb galo caleemasaarka waxaan qirayaa doorashadu markay socoto kala aragti duwanaan iyo tartan baa jiray waxaan qirayaa dadkii tartamayay intii tartanka ka qayb gashay iyo intii saluugtay habkay wax u socdeenba inay mudan yihiin in loo mahadceliyo inay isku dayeen inay dadkooda u soo istaagaan badbaadadiisa iyo shaqayntiisa waxaan uga mahadcelinayaa intii tartanka gashay ee ogolaatay in laga guulaystay waxaan kaloo baaq u dirayaa inta weli saluugsan habka doorashadu u dhacday waxaan iyaga iyo madaxweyne Axmed Islaamba ku boorinayaa inaysan ka daalin wada xaajoodka iyo xalinta kala aragtiduwanaanta jirta waxaan uga mahadnaqayaa dadka waxgaradka ah oo runtii guddiga hadda u xirsaaran uu Suldaan Sonkor madaxda u yahay inay dadaalka wadaan waxaana ballan qaadaynaa wax walba oo kaalinteena ku aadan inaan ka qaadan doono sidii loo soo afjari lahaa khilaaf
keeni kara inuu ragaadiyo horu socodka iyo midnimada Jubbaland. intaan hadalkayga u guda gelin waxaan rabaa halka inaan tacsi uga daro madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo maalin dhoweed walaalkii ku geeriyooday. waxaan isaga iyo shacabka reer Jabuutiba uga tacsiyeenaa halka inuu iyagana samir iyo iimaan ka siiyo isagana naxariistii eebbe ugu wadaajo. geeska Afrika wuxuu noqday degaan isku xiran. waxaan sidoo kale u hambaliyeynayaa Abiy Ahmed oo ku guuleystay in loo aqoonsado Nobel Prize lagu siiyo nabadgelyo oo ka soo hooyay dalka Eritrea oo dawladda Ethiopia 20 sano khilaaf dhexya. waxaad ogtihiin markii khilaaf dhaco mar walba ninka weyn inuu tanaasulaa sarafta ku jirta. waxaan ka rajaynayaa dawladda federaalka ah hadduuba khilaaf jiray inay tanaasulaad ka muujiso wixii khilaaf hore u jiray si ay ugu hoyato inay tahay inay nabadda ka shaqaynayso. waxaan kaloo jeclahay inaan halka ka xuso wasiir Cabdirashiid oo ahaa wasiirada muddada dheer ka soo shaqaynayay hirgelinta Jubbaland, dhismaheeda, amnigeeda qayb weyn ka qaatay, macruuf ku ahaa ama lagu yaqaanay inuu la diriray dadka nabadda diidan ee xag jirka ah. waxaan codsanayaa xarig ma oo mutaysan abaalmarin buu ku lahaa shacabka Soomaaliyeed. waxaasan qirayaa cid kasta oo isku dayay inay nabadda sugto qaladaad baa ka dhacay. waxaan u cudur daaraynaa ciidamadeenna oo iyaga oo wanaag samaynaya ama amniga sugaya maalin iyo habeen uu qaladaad ka dhacayo. wixii qaladaad ee dhacay waxay u baahan tahay in la xalliyo. wixii xadgudubba waxaa la rabaa in laga xaajoodo waqtiyada adag ee keeneen. laakiin markuu qofku nabadda u soo jeesto oo uu dooro inuu nidaamka iyo nabadgelyada ka shaqeeyo waxay u baahan tahay in gacan lagu siiyo. iyadana waxaan ka rajaynayaa dawladda federaalka inay arrintaas xal ka gaarto, xorriyaddiisana u soo celiso. waxaan dadka reer Jubbaland dhammaan kula dardaarmayaa dariiqa hadda ay qaadeen oo ah dariiqa dib u dhiska iyo is-oggolaanshaha iyo dib u heshiisiinta iyo la dagaalanka argagixisada inaysan ka daalin. waxaan garowsanahay oo marar badan oo imaan jiraya haddaba aan arkayaa dad badan oo tabasho qaba oo degaanka ah. waxaan madaxweynaha ka codsanayaa in uu tabashooyinka dhegaysto. waxaase qirayaa dadka Soomaaliyeed oo muddo dheer dawlad la'aan haystay hanka ay u qabaan iyo dalabka ay u qabaan in wax loo qabto dawladaha maanta jira kuma filna inay howlahaas qabtaan. iyagana waxaan leeyahay haddii dawladda Jubbaland amniga Kismaayo aan ku naaloonayn ay qabatay waxay mudan tahay iyadana in la yiraahdo waajibkeedii ka badan bay qabatay oo loo dulqaato oo aan wax badan oo aysan tabar u hayn aan laga filin tabashada ay isu bedelin. dadka Soomaaliyeed way daaleen, dareenkoodu wuu kacsan yahay. dawlad kasta waxay ka filayaan filasho aan suuragal ahayn in la qabto. marka waxaa la rabaa in la isu dulqaato. madaxdana waxaa laga rabaa dadka inay dhegaysato ugu yaraan war waxaas oo aynaga garaawno waa sakar weyn inay ku yiraahdaan markay u dhiitaan oo qalbiga ay u qaboojiyaan. taasna waa ka dardaarmaya. dabcan dalka iyo maraaxishu soo maray ma rabo inaan aad ugu noqnoqdo. intii maraaxishaas goobjoogga u ahayd ama ka soo gudbisay baa halka joogta. waxaan qirayaa in dadaal habeen iyo maalina lagu bixiyey maanta meeshay Soomaaliya joogto. waxaan rajaynayaa dadaalkaasi inuusan niyad jab ku dhicin, inuusan dadaalkaasi uusan murkacan. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa dadaalkaas inuu sii socdo. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka heer dawlad goboleed iyo heer dawlad dhexeba marxalado adag oo qallafsan inay ka soo gudbiyeen. waxaan qirayaa madaxweyne Sheekh Shariif inuu u soo dhowr adeegay dalka oo qarka u istaagay inuu kala tag iyo kala burbur dhaco inuu dulqaad mudan u muujiyey kalifay inuu dalka ku meel gaar ka baxo. waxaan isaga iyo madaxweyne Farwale si gaar ah uga mahadnaqayaa geedi socodkii dastuurka qabyada ay maanta haysanno
iyo ka bixidii kumeel gaarnimada oo iyaga iyo madax kale oo fara badan ay kala shaqaysay oo ka mid yahay Shariif Xasan oo markaas gudoomiyaha baarlamaanka iyo madax kale oo halka naga maqan runtii dadaalkaas waa dadaalka dhalay muddo badan kadib in madax Soomaaliyeed dalka lagu doorto 2012kii sidoo kalena madaxweyne xasan sheekh waxaan uga mahad celinayaa sida uu u dhowray 4 sano oo la doortay oo runtii uu u garawsaday inuu kaligiis wax qaban karin dawladihii xubnaha ka ahaa isaguna geedi socodka ay ka midaysnaayeen ilaa la gaaray in doorasho ay dhacdo oo uu ku guuleystay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo isagana si nabadgelyo ah loogu wareejiyay waan rajaynaynaa sunnahaas fiican inuu sii socdo waana ka rajaynayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi inuu wadadaas wanaagsan ee saaxiibadii ka horreeyay soo maray inuu mari doono haddii ilaahay la keliyo waxaa u weyn oo na hor yaalla waxa weeye nidaamka lagu heshiiyey dastuurka waxaad ogtihiin si doorasho loo galo qof iyo coda waxyaabaha muhiimka ah waxay ahayd in dastuurka meelaha qabyada ka ah laga dhammaystiro waxaan halka wada ognahay qodobka muhiimka ahaa ee dastuurku dhigayay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegidda dastuurka waxa uu qorayay isaguna in xubnahaas qodobkiisa 134 in xubnaha dawladda xubinta ka ah federaalka ay ka mid noqdaan guddiga dib u eegista iyo hirgelinta ee madaxa bannaan oo dawlad walba ay xubin ku yeelato nasiib darro ilaa iyo hadda xubnahaas oo Puntland ay xubinteedii soo xulatay lama ogolaan inay ka mid noqdaan waxaa ii muuqanaysa dib u eegidda dastuurka inay adag tahay in dib loo eego haddiiba shuruudihii dib loogu eegi lahaa aan la wadin waxaa kaloo iyadana mar muuqanaysa dastuurka dib keliya inaan loo eegin in horena loo eego hore u eegiddiina weli waa dhiman tahay dib u eegiddii baan weliga ka soo bixin marka waxaan rajaynayaa muddada hadda dhiman inay adag tahay dastuurka oo weliba laga wada hadal in uu xal laga gaaro waxaa ii muuqanaysa marka haddii dastuurkii ay adag tahay inaan lagu gaarin in laga heshiiyo oo dib loo eego waxaa adkaanaysa doorasho qof iyo cod ah markaas hadday taasi adkaato waxay la tahay xal lama weynayo oo Puntland baa arrintaas looga dayanayaa oo khabiir ku ah Puntland 20 sano ayay waxay lahayd qof iyo cod baa gelinaynaa duruufo kasta ha u diidaane markuu xilligu dhammaan rabo duruuftii la gaari waayo waxaa jira baarlamaanku wuxuu soo saaraa warqad lifaaq ah oo u oggolaanaya in ay qabaa'ilku soo xushaan xubnihii baarlamaanka sidaas ku ansaxaa oo dastuurku uu ku hirgalaa marka waxaan rajaynayaa haddii taa la gaari waayo macnaheedu ma aha in waddo kale oo waa la gaari waayo la odhanayo oo ku darsiya waddada furan waxa weeye in waddooyinkii hore ee la mari jiray in lagu noqdo haddii la rabo in laga gudbageliyo waxaan runtii ku baaqayaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah dawladaha federaalka ah inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhowri lahaa nidaamka iyo dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla nabadgelyada loo wada sugi lahaa geedi socodka dawlad dhiska ee dalka ku jira laga wada qayb qaadan lahaa madax hore iyo madax dambana waxaan rajaynayaa nin walba doorka uga aadan inuu qaato si dawladda Soomaaliyeed ay uga baxdo ku tiirsanaanta dalalka kale ee dhinaca amniga ah iyo dhinaca wax soo saarka iyo dhinaca taageerada dawladnimo ah waxaa kaliya looga bixi karaa waxa weeye in dalkan si midaysan looga wada shaqeeyo waxaan ka codsanayaa madaxda halka ka hadashay oo runtii qiimeyn weyn leh iyo qadarin qaarkood ay muujiyaan meesha ay gaarsiisan tahay heerka frustrationka ay dadka qaybtiis marayaan waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa in dulqaadna la muujiyo dalka midnimadiisa la ilaaliyo wada hadalka aan laga daalin wixii khilaaf oo jirana si wada jir ah looga gudbo
dowladda Puntland waxay mar walba u taagnay una taagnaan doontaa ilaalinta midnimada Soomaaliya iyo federaaleynta dalka Soomaaliya waxaan rajaynaynaa dowr walba oo nala gudbo inaan qaadan doono haddii Ilaahay inuu anagu oonan cidna ku xumaynayn cidna aanan ku soo dhawaynayn inta anaga go'aanada aan ku qaadano waxa way dalka waxa dantiisa iyo maslaxadiisa ku jirto taasaan sii wadi doonaa waana tii raggiga horeeyay wadi jireen inta dhimanna waxaan rajaynayaa in aan guul ku dhamaysano aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi